رحيم أنا وكه اللي أفكر دليرة قبل كسول جارهان دليرة إسوتك تي كشقينتها نبضينتها كوفرتها على دي كان عضي وحان هل كان وجم هالنقيا مدحوينها الدولة ديجا كالصومالي مدحوين مصطفى أكتر وسوق جارسية دق دذوينه هل كاسيكو بركعي مدحوينها وحان لنا هاي نقول هذا أبالك الدولة ديجا كالصومالي ذا عادي بان يدونكم هالعلنا أبالكاسنا وإذي هاينا waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa ama fariin dhalinyarada ku sugan gobolka Sool ardayda iyo dhalinyarada kaleba waxaan leeyahay waa dhalinyaro u kaca sidii aad uga qayb qaadan lahaydeen hawsha iyo nabadeynta ka taagan koonfurta gobolka Sool waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Mustafa Aktar madaxweynaha dowladda deegaanka Itoobiya Soomaalida Itoobiya Mustafa Aktar waxaan leeyahay waa iskuuleenahay waanu ka filaynay garab istaagaadna garab istaagtay aad baanu kaaga mahadcelinaynaa hadaan nahay shacabka reer Sool dhalinta reer Sool iyo shacabka reer Soolba waanu ku mahadcelinaynaa waxaan ka codsanaynaa in hawsha loo daayo dowladda deegaanka iyo dowladda deegaanka Soomaalida in loo daayo ayaan ka codsanayaa iyo ergada kale sida ismada oo kale aan cid kale dhaxgalin ayaan codsanaynaa waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinta gobolka Sool meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan ololaha nabadda sida aan uga qayb qaadanay annagu inay uga qayb qaataan ayaan ka codsanayaa 12 qof way naga tagaysaa waxaan kaloo rajaynayaa inay in ka badan ku soo biiri doonto ololaha nabadeed aan warsameysadaayin waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka aan la soo koobi karin aan uga diraynaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Mustafa Aktar Soomaalidu waxay ku maamaadaan in dhalasho kugu dhiidiyay in dhuun kugu dhaadhacay marka Mustafa Aktar uu soo halgamay si wanaagsan ayuu u soo garab istaagay labada beelood oo walaalaha ah shaqaaqadu ku dhaxmartay Allah marka halkan waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha kilka shanaad oo Mustafa Aktar oo halkaas ka qayb qaatay olole aad u ballaaran oo ah hadii ay ahayd qaybtii mucaawimaadka qaybtii ma garanaysaa ciidamada qaybtii ma garanaysaa dawada cidii u horeysay u soo gurmatayna noqday mahad gaar ah u diraynaa bismillaah marka horeysa anagoo ah dhalinyaradii gobolka isku istaagtay nabadeynta waxaan halkan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Mustafa Aktar waxa tahay ninkii quriya ee Soomaaliyeed oo garab istaagay labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada saaxdheer iyo qorile u dhaxaysa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa dadkii soo barakacay anagoo ah dhalinyarada gobolka Sool waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo gaarsiiyay rug ahaantii caawimadii ugu horeysay taas oo ka soo qayb gashay ama qayb weyn ka ahayd wax soo gaarsiinta dadka abaaroobay dhalinyarta iyo shacabka gobolka Sool waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Mustafa Aktar aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa deeqda soo gaarsiiyay walaalaha Soomaaliyeed halkaas dagaalku ku dhaxmaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa in Allaaliya intii ka qayb qaadatay iyo dhalinyarta gobolka Sool aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya khaasatan madaxweynaha Mustafa Aktar waxaan halkan ka cadeynayaa runtii oo aan xaqiiqada dhabta kaga hadlayaa walaalaha masaafadu dhaxmartay ee dhibaatada isku haya dagaalada iyo colaadaha inaan cid kale hawshooda soo faragelin